Hello everyone, waa idin salaamay. Magacaygu waa Qalbo University. Haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe iyo share iyo like waa noo dhiirigelin mahadsanid. Waxaan isleegaynaa weekly recap aan isleegaynaa weekii hore sidaan nidhi waa sidaan u saadaalinay dhigaas waa Euro USD baa ay noqotay. Entry waxaynu isleegaynaa inkastoo 3 entry meelaha qaadanay. Halkani waa ilaa 16keedii waxaan soo diray dhigaas waayaan lahaa dhigaas waxay joogtaa meel markaan lahaa waxay joogtaa meel weekly fair value-ga in laga celiyo oo meel discount premium la geeyo waa macquul. sidaan nidhi bay noqotay. Sidoo kale halkan waxaa yaala iyadana Euro USD oo taala oo bishii 18keedii baan soo diray 30 baan soo diray. Iyadana waxaa idhi Euro waxay joogtaa daily meel fair value-ga waxay kaloo joogtaa meel value imbalance ah waxaa lagu sii diray OB monthly lagu sii diray. Marka in waa macquul in laga salgareeyo sidiina way dhacday. Dee waa in meel discount la geeyo laga buy gareeyaa meel premium bay joogtaa waan ka salgareynaa. Marka waa kan hadaan daily-ga tagno dhigaas waa intaan ka horeyno. Tan dhigaas waa markaan soo diraynay lahayn dhigaas waxay joogtaa meel weekly fair value-ga aan lahayn. wiiga buy gareynay meel waxay wadnaa fair value-ga kaasa macquul iyadana in la geeyo oo meel premium dan laga salgareeyo. Waxaa laga yaabaa Isniinta inay markuu suuqu furmo in fair value-ga kan laga tegay in dib loogu soo noqdo in haddana laga buy gareeyo taasna iyadana waa macquul oo fair value-ga in lasoo buuxinayo. Marka waxaan isleegaynaa entry-dii iyadana Euro USD iyadana isleegno. iyadana Euro USD markaan soo diray waa tan aan lahaa waxay joogtaa meel daily fair value-ga sidoo kale waxay joogtaa meel monthly oo iyadana OB value imbalance ba dhinacan naga xigay weekly. Marka iyadana saas iyadana waa macquul in la sameeyo oo sababtoo ah joogtaa meel premium inta fair value-ga inta lasoo buuxiyo siinta u furmo talaasada bartaa ku xidhmo talaasada soo qaado Arbacada iyo Khamiista macna soo salgareeyo ilaa fair value-ga la imanayo. Iyadana taas waa macquul oo dhinac kastoo inaad u akhriso wey. Entry-dii baxay haddaan isla eegno laga soo bilaabo ilaa iyo Isniintii ilaa Arbaca ilaa Jimcaha entry qurux badan baa igana baxay. Entry-da baxay Jimcihii Isniintii entry-dii baxay waxay qaaday previous daily high bay qaaday waa calaamad faasila ASEAN high bay ku dartay. ASEAN high markii kugu dartay maxaa dhacay shift kaaga dhacay lugti displacement-iga waa tan soo noqotay fair value-ga ka soo daadatay dareeb qurux badan baa lagu sameeyay. waxyaabahaas oo dhan baa isku raacay 1 2 3 baad haysanaysa ilaa halkaa oo iyadoo tan si live aan ugu qaadan inaan soo dhigayaba badanaa ardaydu bartaas ay kaga baxeen kan ilaa 1 2 3 baan haystay oo aan ogaaday jihada loo socdo. sidoo kale talaasadii iyadana isagana entry-ga ma baxay laakiin entry-gan ma qurux badnayn sababtoo ah London Large buu ku beegmay. inagoo bias-ka ogeyn ayaa waxa dhacday waxay ku beegmantay meel fair value-ga 5 minute ku beegantay oo meel bal lagu tirsaday waa adiga arka. waxaa dhacay ASEAN high buu qaaday. dadka badankooda bartan iyaguna 1 minute ka salgareeyay laakiin 1 minute kama salgareen. waxaan sugayay London Large bay ka beegmay laakiin entry-gu baxay siduu ku baxayna waxa weeye entry-gu haddana London wuxuu qaaday haddana ASEAN low buu qaaday tana way yara adkaanaysaa inuu dee ama jihadii saxdeeda haddana wuxuu sameeyey 15 minute trade qurux badan buu sameeyey shift buu sameeyey fair value-ga halkaas ku daatay waa la salgareeyay oo laakiin London Large buu ku beegmay. marka entry-ga saas ku baxay. entry-ga kale isaguna baxay wuxuu ahaa isagana Khamiistii buu ahaa talaasaha Khamiistii buu ahaa waxaa halkan buu OB1 hawada bartan yaalay shift buu bartan ka sameeyey. entry-gan ASEAN-kii buu baxay oo jihadan aan u soconay waan ogeyn.
markuu Londonkii furmayna Londonkina bartan ka furmay waa kan qaaday bahalkii ka fair value gap ka daatay laga salgariyay dadka qaar waxay sameynayeen tirada qaar balkaas kaga dhacay waxay sameynayeen halkan London low bay ahayd meelkan laguma tirsanin biaskuna sal buu ahaa bartan may 5 minute degeen halkan bay fair value ka dhigtay sal baa laga dhacay inagoo nogaajeeda loo socdo fair value gapkan 5 minute entry ka qaatay baan u daatay 30 bbc oo inay soo dhigay saasuu ku baxay khamiistiin entry saasuu ku baxay jimcihii kale isagana entryga qurux badan baa baxay oo u ruudisa oo plus buu ahaa tradeku wuxuu kugu tirsaday 50 minute fair value gap buu kugu tirsaday asian high baa lagu qaaday shibta qurux badan baa ku dhacay tiri dareef baa ku dhacay saddex jeed ugu dhinteen ama afraad la qaadeen waxa kaloo ku dhacay waxa weeye waxaa lagu noqday 5 minute fair value gap inkastoo kan protection block haddana ruuska sababtoo bartanka mu xidmin entryga waan badhanay marka xilligii new york gaadhay baa haddana entry kale bartan ka qaataan ugu entrygaas wuxuu ahaa oo kan oo 1 to 3 tradekan bixiyey 30 bb bixiyey haddana entry baa isaguna bartan ka banaanaaday oo new york reversal baan doonay jimcaha reversal baa dhaca London low baa laga qaaday saddexdii jeer lagu dhintay baa laga qaaday shifti baa la sameeyey fair value gapkaas loo noqday oo kan lagu dhintay la soo qaatay oo 50 minute la tegay oo la soo daatay targetkuna waxa in fair value gap daily la qaado marka jeeda new bias waxa weeyeen wax kala ma aha inaad ogaato meesha loo socdo iyo meesha laga socdo meesha laga socdo waa OBF OB daily in maxaa la fair value gap daily laga socdaa meesha loo socdana waa meel discount oo hooso oo laga soo buy garanayo marka meesha loo socdo oo ogtahay إن السلطة يربى بحي أدنى معقول مهم وصوك الله تدن ويجاس ويروح بدن بوها وفي سيتا ويجا وراح يسني لقيا بينه تدح تريلوينا قاطي موضوع فرتيل قاطي إنه الدراسة في العي وتو سجاشن بيب وبروف بدا وين ريت كراتي تمر ريت كده إدي غرد كمان تويك ركاب كنت تسنوي وتا wax sidaas oo ay u sii faalaan ma jirin digan hadayna in jeedo suuq aadi karo oo wani sheegay wax macquul ah suuq kulli waa la geenayaa meel discount weyn la geeyo meelan oo biyo xayaala iyo farfaaliga bayaala oo meel la soo socdo sababtoo ah suuq waxaan u maartay hadduu ka daato weyn lagu ritaan qaada farfaaliga gabidan waxaan uu sanayaa farfaaliga kuma darshaashin laga rabxinaya oo laga daadanaya marka jimcaysa siinta suuqa dufur waxa macquul in fair value gam la soo asturo in laga salgareeyo markaad sidii haataba loo dhiirigelay dad suuq siiyo u raac hadhiinuun maadana dad bay garanaya isagoo adigoo haddana bay garanaya adigoo sal garanaya istiraatiijiyada kala wata